waxyaabaha dhabarka marka laga soo tago dadka ugu badan ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah jilbaha. kala goysada jirkeena ugu waaweyn haddana xubnaha badan ay ku jiraan oo jilibka ka mid yahay, haddana wuxuu ka mid yahay kala goysada culayska badan uu saaran yahay. markan waxaa normal ama caadi ah in dhaawacyo badan ku soo noqdaan ama jug badan uu u nugul yahay jilibka. marka laba xanuun waaye dadka waxa ay badanaa ay jilbaha ka saameeya ama dhibkooda u keena. mid waa dadka waaweyn waxaa ku badan da-da daraadeed, waxaa tartiib u dhammaanayo carjadii, kadibna lafihii ayaa isku imaanayo. marka qofkaas wuxuu qabaa waxa la dhaho arthritis. xanuunkiisana iyo xalkiisana waxay ku xiran tahay inta ay carjadan baabaaday iyo sida ay lafaha isugu dhow yihiin oo kala goyskii uu dhammaaday. haddii marka qofka ay weli kala goyskii lafihii ay kala qaadan yihiin, daawooyin xanuun baabayaale iyo daawooyin kaleeto oo xanuunkii qofka ka qaadayo iyo physiotherapy ama jimicsi lagula taliyaa. haddii laakiin qofka uu yahay heer uu gaaro in lafihii ay isxoqayaan, caafimaad ahaanna uu ka bixi karo qaliin, markaasoo kale waxaa lagula taliyaa qaliimo sida in jilbihii loo bedelo ama qaliimo kaleeto oo lafahan lagu kala qaadayo. dadka dhalinyarada badankooda ayaga ma qabaan waxaa loo yaqaano arthritis oo kala goyskoodii uu fiican yahay, laakiin jugta kusoo noqota sida midda dhaawacyada isboortiga ka imaadoo kale waxaa dhaawac ka gaaraa waxyaaba jilibka ku jira sida seedaha, meniscus waxa la dhaho ama ligament. waxyaabahaas dhaawacyada ku dhacana badankooda haddii aysan saydkii ama xubintii aysan go-in, badankooda zaaid aysan u goyn, badankooda muddo kadib way raysanayaan. haddii dhaawac uu gaarana xalku wuxuu ku xiran yahay inta uu gaarsiisan yahay maqaliina mise waa daaweyn.